Mustafa Artis iyo Maxamed Ordaye waa laba nin oo dhalinyaro ah, balse ka soo muuqday baraha bulshada maalmihii la soo dhaafay heerkooda ugu sarreeya. Labada nin oo dhalinyarada ahi waa laba nin oo talented ah. Mustafa waxa uu sameeyaa artiska, halka Maxamed Ordayena uu kusoo galo talentigiisa barta TikTok isagoo ordaya, waana waxa sababay in magacooda iyo magaca Soomaaliyeedba ay hawada sare geliyaan. Saaxiib subscribe inoo saar barteena YouTube, like iyo share-na naga hilmaamin, mahadsanid. Mustafa bartiisa TikTok waxa uu kusoo galaa Mustafa Artis, wuxuuna sameeyaa artiska ama sawirada, ama waxa uu bedelaa dadka sawiradooda oo waxa uu ka dhigaa mid artist ah. Waana waxyaabaha loogu jecel yahay adduunka ama talentedka ah ama kambaniyada ama shirkaduhu ay jecel yihiin. Mustafana shaxda ayuu fahansan yahay oo waxa uu sameeyaa sawirada kambaniyada, dadka caanka ah, ciyaartooyda iyo kooxahaba sawiradooda. Muuqaalkaas uu Mustafana ku jira ama artiskaas uu Mustafa sameeyay waxaa la soo dhigay ama uu ka soo muuqday barta AC Milan ay ku leedahay TikTok. AC Milan waa koox ka mid ah kooxaha ugu caansan caalamka haddaysan ahayn midda koowaad ama midda labaad. Isna waxay ku tusaysaa in Soomaalidu ay ka baxday zoonkii ahaa Soomaalidu in aysan muuqaaladoodu ama Soomaalidu aysan celebration ama Soomaalidu aysan wax international ah aysan sameynin ama muuqaaladoodu aysan dadka kala gaarin. Mustafana xuduudaha ayuu ka gudbay isagoona hadlin oo aan qaylinin oo aan qabiil caayin ayuu wuxuu ka soo muuqday TV-yada ama shaashadaha caalamka kuwooda ugu sarreeya. Maxamed Ordaye waxa uu la soo galay barta TikTok talented u gaar ah, magac u gaar ah, waxa uu sameeyay magac ka turjumaya oo ah inuu ordo ama qof orod ku soo gudbiyo muuqaaladiisa. Maxamed Ordaye inkastoo uu yahay nin Soomaaliyeed, ma ahan muuqaaladiisa kuwa ku baxa wax luqad ah, mana ahan muuqaaladiisa kuwa ku kooban kuwa ay daawadaan Soomaalidu, ee waxa uu soo gudbiyaa muuqaalo ay daawan karaan ama ay daawadaan dadka dunida oo dhan, ay qof walbaahina uu fahmayo. waana wax shactaro ama in comedy ama qosol ah. Maxamed Ordaye talentigan uu la yimid ma ahan mid uu horay u soo fiirsaday ama qof uu ka soo arkay, ee waa wax isagu niyadiisa uu ka keensaday iyo talentid isaga u gooni ah. Taasna waa midda sababtay inuu noqdo qof caan ka ah adduun weynaha, dadka oo dhanna ay wada daawadaan, caruur, oday iyo ciroolaba.